wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa maanta qada sharaf u sameeyay 114 xubnood ee golaha dhexe ee u codeeyay waqtigii uu u tartamayay jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbigaasi. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay wasiirro tiro badan oo ay ka mid ahaayeen warfaafinta, boosaha, qorsheynta xanaanada xoolaha, wasiir ku-xigeenka agaasimayaal guud, xildhibaano, garaado, salaadiin, cuqaal iyo marti sharaf kale. bilowga hadaladii madasha oo uu furay Maxamed Garaad ayaa si ballaaran martida ugu soo dhaweeyay madashii qadada, sidoo kalena Saleebaan Cali Koore, xildhibaan Obama, Amaal Xaaji Miisaan, Maayar Soltalko iyo xubno kale oo madasha ka hadlay ayaa ka warramay mabaadi'da xisbiga kulmiye, dimuqraadiyadda dhaxtaala iyo higsiga siyaasadeed ee wasiir Xagle Toosiye. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa isaguna hadallo kooban ka jeediyay madasha. Xagle Toosiye ما أقف إمك عاوة إنه ومرينه وقف الله تدرو كلامه أي نصوص شرح كلامه وحوارا ومان تعيش ككتري إن حسبك الكلية شركي سيوكاي لفيلي أنت تمياش أقول صباحا أقول ما يسوي بالرواية لكن وحن كوكر صوري إبغايا فريق وقعد كافيا حاجة توصيه فلتي أيمان به جروب عصب أو أي فكرة يمبدأ إليها وحن كوكر صوري هذا تريسا رأي بعضية مبدأ بعضية اسمها كرمية بعضية اسمها سوماليلاند بعضية اسمها مدينة سوماليلاند بعضية وهي المكة بعضية حاجة توصية غير قضائية تطبع غيرك وحملية شعبية تعلق الكل يومي حاجة توصية صوصة عقل بعضية رأي بعضية أنا واحد من الشيء وعشرة يوم أي حكمي طلع بهاي الكلام إن الحميد كحيك سيجعوا فوقيي أي حق يمكن نقضنا يجروا حضرنا هاي رأي يفكر أيام الإبنية احترام يا حكم كيوغان حسب الكلية بلك الله ما الرأي بس سحمي عايم وعن كل التوين هاي إلا بدا رأيي أو كل نيسان حسبك كلية هي رأي ستحاول إلى بين ما تيرح نفسي لكن أمره بردو إلى كلية هاي أو يمن الله إنت كلية ولا وعمان تيرح الله إلى كلية اسمه أو كلية. sidoo kale wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Maxamed Jaamac Abgaal ayaa isna madashaasi ka hadlay. ay keentay maalinta codkii la qaaday madasha maanta ee dadka kala wada heerka ah gobolada kala duwan ka yimiday ee haddana madasha isugu yimiday waa guulaha koowaad ee la gaaro. anigu runtii waxaan ka mid ahay wasiirada ka soo jeeda gobolka Awdal runtii waxaan filayaa oo run ah qaranka Soomaaliland madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland sharciga iyo dastuurka u qor waa mid loo siman oo xuquuq isku mid ah loo leeyahay. ma jirto galbeed baa waxle, ma jirto bari baa waxle, ma jirto beesha dhexaha madaxweynaha ma jirto. waan ku hambalyeelayaa inuu ku dhiirado wasiirka wasaaradda caafimaadku inuu u tartamo xubinta ugu sarreysa qaranka Soomaaliland ee ah madaxweyne ku-xigeenka inuu u tartamo. macnaheeduna ma aha reer awdal buu ku qabsaday oo sanaan iyo soob iyo awdal baa isku haysta madaxweyne ku-xigeenkii ma aha malihin annagu qarankaale. gabagabadii wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleebaan Xagle Toosiye ayaa madashan lagu soo dhaweeyay waxaana isu taagay oo garbihiisa soo buuxiyay mas'uuliyiintii goobta fadhiday waxaana wasiirku u jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa isagoo si qiiro leh ugu mahad celiyay xubnaha golaha dhexe ee 114 ah ee uu casuumadda u fidayay isla markaana u codeeyay isaga waqtigii shirweynaha xisbiga kulmiye ee uu tartamayay jagada madaxweyne ku-xigeenka ee dalka. sidoo kale wasiirku waxa uu ka hadlay sida ay uga go'an tahay midnimada qadiyadda iyo mideynta shacbiga Soomaaliland. hadaladiisina waxaa ka mid ahaa waxaa maanta shirkiga in
أما هذا اليوم هو إلى هو محسنته يقضيه شرفتها صاحبي قراها التسبيح كليا عطوا رئيسيا يا كان إذن كما هذا إليا ولقينا إذن النور مالي سياسته هالحوار في البلاد هذا المهرب ساعد سلمة المهرب قف معك عن سكوت أجوالي أنت تكبر شهر ولا حسوس أنت كده ولا أنت تكبر شهر ولا حسوس وحان إلهي لكم هذا يا تهين وقال يا فريق تمكين أنت أنا ولا يا رب وإنكم يا حسنا الله خاصة في وضعي وإنه هنيني لا مشرع كلية ليهاي بس هم بدن يشقق الله إنه تعالى أنا سيدي أنا هنيني إيجان يستاهل مدحونا إن لا شقيه ذاك يذكر لو شقيه وبايمك كشرة أي ثلاثة بتاع شقيه كان عليه مكان اسمه شقه وزارة العافية كل نبوس الكاهن وحاول نام دوتان من هذا السؤال أنا ولده شعله هاي وهو يابني الفاكهة نودنا يعيش كليان إلا أنت إنه سؤال بقول كيما بقول من مدرب نهارس بقول كيما بقول وحنقول شيء واقع والله بريء أولي كل 50 يوم ويا أي سؤال فلان الله يعني ما يعلم الله إلى المتابعة نسلي أمام حاجة مسامح لك وأنا كشف إن الديوان جديد وقتي إنه هو بدل إن برنامج ضد كذا الديوان إن ضد كذا مقدمينه واحد كيس على فوز هو حق كنت مركز الدوري الرأس مقدم كيس ضد كذا مقدمينه حقوقه وغيره وما راح إنك على الله السؤال له واللون هايو حقوقه وضل بعمره وحاول قال لي أنا كشقيه من تحصيله ومنها يديوان جريتا وقته ما أنتظر معها وحنشرها هكذا إن اسمي وكلية وحا أساسي مدحوينها وقت بدل الجلية والله يستيقي سيكمي تهي ومدحوينهم نقل بيوصل شقيه يذكرها إلا يستيقي سليلانيان والفعان تهي وحاول يحسن اسمي الكلية إنه ينقل على نوع كسبه وبرفوك لي أصلا ما يقتلوا آدي آدان الله يدين كما هذا